gubanaya maanta waxa xaqiiqda Soomaalida u cadeynaya waa beenteeda wiil ima dhalin labo carruur ayay dhashay wiil iyo gabar ayay dhashay Xasan Toob meeshu iga fasaqay asaga ayaa yaqaano horta xaaskayga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض ودير مركز الدنيا دافئة كجوكتان ولكن خضر هذله هالك داون سندق في رسالة وبرتا يوتيوب ككلنا عندي سو official فضلا داود هدي تامر كوجوري سكان الكهورت هذا صوت باشو وعنسنا حريص كاجا عسنا إن كان كسبسكرايب تنوصرتو هدي مقالك كقنعينا أضليك تنوقبته لايك تو إحنا عاوري صح إنه هريب مقالكو ملفي عن جارو أدبد ما سنتهي سيشير جور لو ذاك صاحبت هذا قارئة مركز الدنيا دافئة كجوكان وعفكري وراهنا كومنتي كوس نقول مع السند maxaan hadaba caawinay hayaa mar kale iyo muuqaal waxa gudaanba baraha bulshada la isla dhaxmarayay cadooshare xaaskiisa ninkii qabi jiray oo hore oo barooranaya misalana ku camanaya in macnaha uu cadooshare sixir xaaskiisa oo macnaha sixir ku qabo bal asxaabta qaariga warka iyo warar kale oo badan ayaan iga dabadegayn doonaa asxaabta qaariga bal soo dhawaado soo fadhiista waa walaalkiin oo idin leh welcome hadaba sawad ogsoonnahay baraha bulshada waxa la isla dhaxmaraya xaaskii hore ee cadooshare maslaxo ninkii qabay oo ku andacoonaya in cadooshare uu ku qabo sixir bal asxaabta qaariga maxaa ka runa maxaa ka beena bal asxaabta qaariga waxaan doonayaa warkaas inaan iga dabageeyo mid kale ninkan oo hadda aan magaciisa lahaynin ayaa waxa uu sheegayaa in uu cadeen Xasan Toob uu sheegi doono amaba uu ku haysto balbarta uu gabadha kaga fasakhay iyo balba sababta maxay tahay ninkan uu mar hore uga hadli waayay in xaaskiisu hadii xaaskiisu intaasi ka maqnayd sababaha uu soo ceshan waayay sababaha iyo sababa kale oo badan ayaa ninkan waxa uu leeyahay arintaasan ku haystaa asxaabta qaariga aad bad maasantiin bal waxaan jeclaysiin intaan muuqaalkan guda galin bal inaan muuqaalkan ninkan iyo waxa ka runaya waxa ka beera aad la soo daawataan أردت لما حل كرنيو أردت روحوا اليوم وما تسمع لدوا عم شيء ناكتي إذا نك عمني كاس أفكار دير عطوشير اللية سحر إنه كويستو هذين كستنوا في فيديوهات runtii wadarkatan asxaabta qaaliga waxa uu leeyahay macnaha wuu aad buu u baroonaya aad buu u qiireysan yahay aadna ilminta waa laga tirayaa soft ba laga tirayaa runtii hadaba waxaan oran karnaa ilintan ma ilin ka dhaba waxa soo badanaya bariyahan macnaha rag badan oo saalinta xaasaskooda ay dayacaan kabacdina markay nolol fiican helaan nin wanaagsan ay helaan kabacdina sidaas u barooranaya raggaas waxaan oran lahayn ama feefaro lahaw ama adkaysi dambe waxa uu sheegayaa waxa uu leeyahay macnaha culugan afka dheerli xaaskiga sixir buu ku qabaa Xasan Toobna macnaha halku igaga fasaqaysaga sheegaya bal asxaabta qaaliga sidoo kale maslaxo waxay sheegtay maslaxo oo iyaduna leh waxaan u dhalay hal culuga iyo bal ninkan waxa ka runaya mid ka beena bal maslaxana ila soo daawada Atoosh wiil ma guursanin laakiin ani guur waa soo maray hal cunugaani joogo marka wax walban isfahan waay okay saad wada arkisan ama wada daawanaysaan waxay maslaxa kaga dhawaajisa oo leedahay intaan cadooshire aanu guursan nin hor xaas hore ayaan soo maray nin hore ay soo qabay macnaha hal cunugaan u dhalay iyadu marka ay sidaa leedahay hadaba inagu garan mayno laakiin se iyada ilaahay ay sog bal hadaba ninkana waxa uu isaguna uu leeyahay hal cunugay ma dhalin laba ay dhalatay waa wiil iyo gabar macnaha waa soo hadalka isagu u sheegayo bal hadaba isagana isagoo leh laba cunugay dhashay bal waa kan isagana ila soo daawada Soomaalida u cadeynaya waa beenteeda wiil ima dhalin labo carruur ayay dhashay wiil iyo gabar ayay dhashay Xasan Toob meeshu iga fasaqay asaga ayaa yaqaano okay asxaabta qaaliga aad bad maasantii sida qurux badan noo daawanaysaan bal hadaba gabadhan maslaxo arinka ay leedahay hal culugaan u dhalay iyo ninkan barooranaya nin raga wax la arki jiray adkaysta waa maxay ninkan social media barooranaya isaguna waxa uu leeyahay laba culugay dhashay wiil iyo gabadha bal asxaabta qaaliga wixii ka runa mid ka runta sheegaya comment-ka adigu nagu wadaag aad bad maasan tahay runtii waa duni wareersan runtii waa duni aakhir samaan waxaan oran lahayn qof walba xaaskaaga macnaha adigu inta aadan furin adkaysoo ka daba tag sidoo kale waxa uu sheegayaa ninkani in ay gabadhan maxay hayday isagu uu jawhar joogay misna ay telefoonkii wax ka qaban weyday telefoonadii ay badashay sidoo kale waxaan wada ogsoonahay cadooshare iyo xaaskiisa maslaxo waxay toddobaad bixoodii ama honeymoonkoodii ku jiraan magaalada Baydhabo oo ay ku damaashaadiyaan ninka sidoo kale waxa uu kaga dhawaajiyay in ay asxaab badan oo
oo isaga yaqaani ay u soo dirayaan cadooshare iyo xaaskiisa oo isla neekinaya tiktoka ay ku xarqinayaan ninkan ay u diriyaan kabacdina ninkan ay qalbiga muraayadu ay jabayso oo macnaha uu ka seexan kari laayahay waa si isagu sheegay haddaba waxa jirta runtii waxaan leeyahay cadooshare iyo maslaxana runtii cadooshare waxaan leeyahay cadoosh runtii haddii aad gabadh wanaagsan hesho oo marwe ah runtii waxa qurux badan gabadhaada inaan social media hadan keenin oo wixiinu ay barefadin yahadan bal xasan toob ku dayo shiina culay cimraan runtii waa saddex youtuber saddexdoba oo la wada yaqaano midna xaaskiisa social media ma soo bandhigo qof walba barefad ba u tahay cadooshare waxaan ku leenahay walaal anagoo ku dhiirigelin oo kugu waaninayna inaad xaaskaaga aad qarsato runtii haddii aad maanta barefad waxa uu ku halee ninkani mana soo baroorteen sidoo kale waxaa sheegaya in uu dilku ugu hanjabayo ninkani macnaha cadooshare uu leeyahay baalkan afka dheer liigu sixray sidoo kale xasan toob mulkiilaha durdur media isagana waa haystaa asxaabta qaaliga bal intaas ayaan jeclaysan lahaa inaad muuqaalka aan ku soo gabagabayno intaana muuqaalka aan soo gabagabayn waxaan iga codsanayaa inaad channelka subscribe-ta noo saartaan aad baad mahadsantihiin qof kastana waxaan u rajeynayaa bila rabadaan baan soo galnay inuu ilaahay khayrkeedana siiyo bisha rabadaan kuwii ka faa'iidaystana naga dhigo aad baad mahadsantihiin muuqaalka sii share garaya like-ta share-ta commentiga intuba waa dhankina intaan muuqaal la mid ku kulmi doono waanigoo khadar hudlaa bartan aad daawanaysina waa bartan youtube-ka ku leenahay Andiso official dhammaantiin waxaan leenahay